الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا ومعلمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ثم أما بعد. ولا ليال marka u horeysa waxaynu isxusuusinaynaa ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaala. allah inaynu ka cabsanno subxaanahu wa tacaala. cabsida ilaahay addoonku haddii uu caadaysto ay sifo u noqoto samatabaxiya badbaadaa loo filayaa. camal wanaagsan buu la imanayaa, zaad fiican buu u qaadanayaa maalinta uu ilaahay is hortaagi doono, isagoo qaawan, isagoo aan kaba xidhnayn, isagoo aan gudnayn, cadceeduna ay soo dhowaatay. alle wuxuu yidhi subxaanah, isagoo dadka mu'miniinta la hadlaya, dadkii mu'miniinta ahaayow, alla iyo rasuulkiisa rumeeyoo raacayow, alle ka yaabo, alle ka cabsada. naf waliba dib ha u eegto waxa ay barito alle hortii la tegi doonto, oo alle hortii ay mudan doonto. naf waliba inta ay dunida joogto iminka ha iska eegto oo ha ka taxadarto oo waxa wacan ha qaadato oo waxa xun ha ka fogaato buu ilaahay tilmaamaya. markaasuu alle ku gebagabeeyey aayadda markii dambe, wattaqullaha, alle ka yaaba, ina allaha khabiirun bima tacmaluun. alle waxa aad samaynaysaan waa alle xogogaaloo guniya baar buu ogyahay, waxba kama qarsoona. wuu ku maqlayaa, wuu ku arkayaa, waa kula jiraa, waa ku og yahay. adigoo dhan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala u muuqanaya. walaalayaal, qofka bani aadamka ah dunidan marka uu joogo wuxuu marayaa marxalado kala duwan. marxaladii waxay ahayd uurkii hooyada marka aad jiiftay, waa lagaa soo saaray, uma sabiila yasara. ilmo yaroo sabiyaad ahayd, waxoogaa kuray baad noqotay, dhallinyaraad noqotay, nin garhmadooba ah oo xoogaad noqotay, waxaad noqotay nin xooggiisii buuxsamay, oday baad noqotay, waad asaasaqday oo cimrigaagii waa dhaafay intaa. ilaahay wuxuu tilmaamay heerkaa markuu gaadho qofku, dad badan oo dadka ka mid ihi in caqligoodu carruurtoo kale sabigaa uu noqonayo, likay laa yaclama bacda cilmin shay-a. waxba kala garan maayo qofkii, sabi oo kaleu noqonaya. maxaa xiga? geeri baa xigta, dunidan uu ka guuro oo uu aakhiro u wareego. noloshaasi waa in yaroo kooban. marxaladaha midiba ay mid beddelayso ee aad marayso qof yahow bani aadamkaahi waa wakhti kooban marka loo eego nolosha dheer iyo sadcaalka fog ee ku sugaya ee sakaraadka ka bilaabmaya iyo marka ay naftu kaa baxdo. waa nolol aan laga sooba noqonayn baad ku socotaa, meesha aad ka imanaysana waa nolol laga tegayo. qofka caqliga lihi waa qofka safarkaa fog u tabaabushaysta, inta uu joogo dunida is ururiya oo ilaahay inuu la kulmaya ku talagala. qofka khasaarayna waa qofka is-ilaawa ee noloshan yare kooban ilaaway wixii halkan dunida loo keenay, dabeetana si dayaca dunida uu kaga tago, loona baqayo marka uu godgalo ilaahay la kulmaya subxaanahu wa tacaala. talo wacan baa rasuulku bixiyo wuxuu yidhi xadiidka saxiixa ah, 5 arrimood oo qof yow bani aadamka ah kugu imanaya soo socda, intaanay 5taasi kugu iman 5 ka horaysa la kaale. waxaad ka faa'iidaysataa qof yow bani aadamkaahi iminka dhallinyaraad tahay, dhallinyaranimadaada ka faa'iidayso inta aadan gaboobin. haddaad noolaato gabow waa lama huraan, caafimaadkaaga ka faa'iidayso inta aadan bukoon. waxa alle ku siiyey adduunka uskaga ah ka faa'iidayso, alle ugu dhowow, waajibka lagu leeyahay ka gudo intaanay farahaaga dhaafin. adduunyadu ama adaa dhaafaya ama iyadaa dee kaa tegaysa. firaaqadaada ka faa'iidayso, inta aadan mashquulin ka faa'iidayso, noloshaada ka faa'iidayso. noolaan maysida inta aadan geeriyoon baa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. waxaa rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, dadka waxaa u khayr badan qof ilaahay dunida cimri siiyey عمل وناكسنا إلهي قدره سبحانه وتعالى
وحضرتك هو أيان درن من دون ذا عمرك اللو سيداي عمرك هاللو سيداي عمل حناء كل فاقيه وحا أكرر صدابا ودباتي اللقوي ولا ليال marka laga guuro gurigana duunka waxa loo guurayaa guri aakhira la yiraahdo guriga aakhira la yiraahdo waa deegaamo badan buu ka kooban yahay deegaanka u horeeya waa qabriga oo qofku galayo ku hoyanayo rasuulku wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam qofka muuminka ah aakhira marka la tago ee ilaahay uu dadka inuu kala xukumo u yimaado yawma yaqumu an-naasu لرب العالمين ومخلوق هلكا تبيهي قفكي مؤمن كأها سيجارو الله ولا فقيه مخلوق يوان أركين وأن مقلي وأن أجين أيو سيجار ولا صباح يا إلهي أستر كي سؤال كو أستريا مركاسو قفكي الله الله يا الله وحكورنا يا دم بيجي عين كام سمايسي دنيا عشديات شوكت هاي له هو سمي دنبيغا ما سميس واسمي دنبيغا ما سميس واسمي مركو يسيرهابو كو دماتي حمانتا كو مهري والله حالكو waa kugu adag yahay ayaa Allah wuxuu oranayaa satartuha alayka fi dunya wa ana aghfiruha lak al-yawm dunida markaad joogtay waxa aad sameeynaysid dadku kuma ogeyn ana ku asturayo ku ceeb qariyay maantana waa ku saamaxay dabeetana malaa'iktii ayaa lagu amrayaayo kitaabkii bay gacanta midig uga dhiibayaan قالكي منافقي يكوي ليتي وحي خلد وحي دنبي اي قالين مخلوق يوطبا بنانكي هل كاسر لوغا دواقي الا لعنه الله على الظالمين فضيحت يعيب بهلكا كغا دعيسا ولا ليال عشو والبا وحينو ارقنا ميد لسيسيدو قالين هوري اما قالين دنب ميد لسيسيدو اما waxa laga yaabaa xabaalaya qubuuro inaynu agmarno oo aynu aragno laakiin waruma hayno xabaashan gudaheeda waxa ka socda qabrigan iyo xabaashan qofka la dhigayo wax ka socda waruma hayno waxaan shariicada ku haynaa midna godkiisu waa ku ololaya wadabnaara midna godku ku barwaaqaysan yahay oo nicmo iyo janno ku haysta say rasuulku iyo diintu inoo sheegtay alla ka waramay subhanahu wa ta'ala isweydii meeye waalidka mee xaguu jira حقاي قبتين آبها ميه والدكينا دلي والدكي سي دلي ميه ولا لذا ميه شاركي ميه ضدك انت تقاني حقاي قبتين وكتغينا الدنيا بل انت قف ولو با انت تقاني ايه الهي اوف صدي بل دي بويك اد بيوتي رب دنت حقاي ضدكاسي قبتين قبري بيكوه يدين دنيا وكلا لابتين اهلكي iyo farxad ay dhex joogeen dadkoodii ubadkii iyo awlaadii adduunkii iyo jagadi iyo kursigii maalkii la haystay laydharkii daarna furshaantii lagu hurday raashinkii la cunayay maryihii la xidhanayay xaragadii iyo gawaadhidii meel hawlahaas oo dhan waa laga dhex baxay xagee la qabtay qabri baa la galay qabriyo maxaa tahay waa wax dhirirkaaga la eg oo ballacaaga la eg oo doc waliba ciidi ka xigto dusha waa ciid hoos waa ciid xaggan waa ciid حقا واعيد بركين مله جوجل مله مرم مله كبا مله لايد مله وهل مله حاس ما تشوقو عروري ما تشوقتو والدي يا ولال اهلي يا سوكيه waxaan maanta in isku baaxsanaynaa ciidi mala joogto kaliya baa jiif amalkaagi baa kula jaara haduu xumaayo haduu wacna isaga kula jooga wax kale kula jooga ma jiraan isaga ku wehela halkaasaad gelaysaa halkaasaad ku hoyanaysaa wuxuu rasuulku yiri kaleey salaatu wasalaam qabriga markuu ka hadlay qabrigu waa deegaanka ugu horeeya ee aakhira buu nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam Uthman ibn Affan wad garanaysaan ayaa lagu yiri Uthmanow marka aad qabri qof la aasaya timaado waad ilmaysaa ilmada ka soo qubata garkaaga way qoysaayo way soo dhaaftaa ilaa laabtaada ku dhaadhacdaa marka janaya naar la soo hadal qaado sida uma ooyid Uthmanow maxaa dhacay wuxuu ku jawaabay waxaan maqlay nabiga oo cishooyinka kamida yiri al-qabru awwal manazil al-akhirah qabrigu waa deegaamada aakhiro deegaanka ugu horeeya ee qofku markuu dunida ka yimaado uu ku hoyanayo fa in yanju minhu hadu qabriga qofku ku badbaado fama ba'dahu aysaru minhu
وحي كدن بيا وسهله وإن لم ينجو منه هدانو قفكو قبرك كبد بادي وعذابكم متيستو فما بعده أشد منه وحي كدن بيا وكسي أدقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولك وحي عليه الصلاة والسلام ولي جاي ما أرك أي نبي ورنا صلى الله عليه وسلم إيه هذا ولي جاي ما أرك مو قال انتي وحلي تسي كانوا أرك ونار بالله تسي والدنيا ده ميل بدن بو أرك وحبدن بو سو تشوقي ولي جاي ما أرك قبرك ميل لم يدبر النبي عليه الصلاة والسلام ميل قبرك لم يدا وكأرك جحبدن قد كقفك الله تشوفين أيوه ما أرك النبي صلى الله عليه وسلم قبور هذا الكيسان بدن وكم يدا مدوية مكدبة بوحيي النبي عليه الصلاة والسلام وحي لهاي كو افتيمين يا صابت لما دوباتي ما القرى كما دلوشو وافتينكو كسو جليو عدعيدا بحيسة وينك أركي مركا الله آسا يقفك بوبا يدقح بالغو ملاسا ما القرى إنانو كالنفسا إمنك هديدا قدها الله حدحلو الله يركن الله بختيو ومدو وحبارك ماينو ما القرى أفراني ما جرت حباشو وابرنتو وحرنتها وحا قفك ويفتيمين يا قبرك يا حباشا النبي عليه الصلاة والسلام عملك صالحة أي رسولك التلمامي صلوات الله والسلام عليه حديثك قتادة وحو شيغي أنا سنأورين أيو قفك مؤمن كاي أما قفك مركو ننتو قبرك الله ديقو والنبي عليه الصلاة والسلام وحا درتبأو إيمانيا إساقودتك آسي قوادي بحيسي شنقدي كبيه عودكي وحا ومقليو نفتا درتبأ لسوقلينيا طبعا تنوى الله صوفر ديسينيا لبا ملك باو إيمانيا ويسوفر ديسينيا وحا الهور كينيا صورة يصور نبي محمد صور كيسي بالهور كينيا ما قرانا يساقف كاسي هدو قف مؤمنة ومير قبا ودين تقول دقمة وإلهي كعب صدا ودنيدا إسئلاليي هدو قف كاسي أها دور تبوح ورنا يا هاوى رسولك إلهي أشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله رسولك إلهي نبيهبان قرية وأنه دين بنسوق قارسي مركاسا وحال ورنا يا هلكا إيك وحال تصيا هلكي النار تكلها ما وجد هلكا أولا ليس ومقسنك يا النار تكجلي لهيد واتكسم تبحث ألا كابد بادي هلكا أنا إيك واتشندي هلكا سهوي جايجو يهي قبرك الله واسعين يا هلكا ساليدا يا معانك يا قبوة يا نذا لو قصوا أفوفيا إسكاسيحو نم نومة العروس قف أروس أوك لهرددي سيحو قبرك الله واسعين يا هلك أي إشي سجاد أبو النبي عليه الصلاة والسلام يا الله كلا فكينا كي قال كها يكي منافقها مرك الله هركن الصورة دي يسور كي نبي محمد صلى الله عليه وسلم قرانا يسا إلا الدنيا دوامد ضفري يمد دين تكتنتي يمد إلهي يا رسول بالله استيسوا عاية الدنيا ده أنتوا تشوقي أيها الله هركن ما قرانا يسا مرك صورنا يا ها أفكارقات بكسهر يا عباد بحب قرن ماي ضدك وحلوة مغلي تشيري مركان دنيا تشوقي لكن ما أنا بدكتيو إيجا حقه ملاك الله ورنا يا جراعة دبيال يبرد برا بيلد عيانه هالكاسة كقبل أبيه عباد ككب حيا شنك ينسي جمويانه مخلوقة أنتي سكلة ومغلي يا أبو النبي عليه الصلاة والسلام سيدا صار له جراعة إلى أنت قيامه وكعيه ولا الله يلا رسولك وحوت المامي عليه الصلاة والسلام قبره إنه قفك عن توجه مركز سيدا قبرك قفك اللوجليو وقبنا يا قبرك قفك ومعناه وقبنا وحل لوجت لا وصادرك يا قفك قبرك يبقى كصادرك يا سيدا سوء قبنا يا قفك قبرك وكاسا مؤمنك يا قالك يا منافق ويكل الدوين هنا مؤمنك قبشنا وقبرك أنتو كصادرك عريري اليوم عيد كبحسنا يسامى شرط النبي صلى الله عليه وسلم عيد والي بأورد متى عرير كام شد هره ويلا كل ميسا وحنا وركو كيمي من صحابة كم يدو جيريودي وسعد بن معاذ ليراهدو أي عشري أوردن تيبا رسولك وحيري نينكا أدركتان سعد بن معاذ ما أنت جيريودي جيريدي نينكا كتمي ملائكتي سمدة شوكتي عرشك إلهي بقلقشي والنبي عليه الصلاة والسلام عرشك إلهي ما أنت نينكا جيريديسو ولا قلقشي نينكا كوراي كتهاي عثمان سعد بن معاذ هدي عيدي كبد بهذا يسوع عن توجد يقبشة يعرير كقبرك نينكا سكبد بهذا لا النبي صلى الله عليه وسلم قف مؤمن كاي مركو قبرك صادركو ويرى عريريو وحاول لمدي هي قابك وقبرك وقبنايو هو يترال بدن أو نحريس بدن
oo inankeedii ilmaheedii soo qabatay oo halka ku qabatay oo kale dabeetana wuu sii deynaya ila dhulkan iyo adoonkan meesha ku jira intaba ilaahay baa leh qof wacan buu ahaayo waa laga durkinaya kii gaalka ahaa way isu soo durkaya qabrigu way isu soo durkaya ilaa ay feedhiba feer dhaafto feedhaha midigta jooga halkaas ay afka kala baxayaan kuwa bidixda jooga tartarkana halkaas uu dusaya nabiga kaleey salaatu wasalaam hatta takhtalifa adla'u ila ay feedhiisu saa'isu dhaafaan nabiga sallallahu alayhi wasallam waa qof la buquujinayo waa hordhac baa la yiraahdaa waxa ku soo socda ayay intani hordhac u tahay waa suuriyadii koowaad baa loo dhiibay oo lagu sooriyeynayo cadaaba ayaa la siinaya walaalayaal qofka muslimka ahi waxa la gudboon inuu halka u tashado sidoo ilaahay ula kulmi lahaa oo godka marka uu galo ilaahay subhanahu wa ta'ala xisaabta uu xisaabinayo u badbaadi lahaa wuxuu ila al-Bara ibn Aazib saxaabi la yiraahdo ayaa wuxuu yiri rasuulkaanu maalin raacnay nin saxaabi oo ansaarti kamida geeriyooday xabaashiisii baanu tagnay xabaashii baa loo qoday ilkii baa la jeexay markaas rasuulku fadhiistay xabaashii ilka marka xaqan lagu soo rogay ayaa rasuulku kaleey salaatu wasalaam waa fadhiistay xaqa iyo qibladu u jeeda uu kada looba ciidii laga soo guray ilka ayaa halkan labadii saacadood dhexdooda taala nabiga kaleey salaatu wasalaam ul yarbu sitaa ciidii ilka laga soo guray ayuu sida u shakuleeyo ku mudmudaya nabiga kaleey salaatu wasalaam faja'ala yanzuru ila as-samaa'i wa yanzuru ila al-ard wuxuu bilaabay kolnaynu cirka eego kolnayn dhulka eego nabiga kaleey salaatu wasalaam saddex jeer buu marna kor eegay marna dhulka eegay nabiga kaleey salaatu wasalaam markaasuu saxaabada ku soo jeesto yiri ista'iidu billah min adhab al-qabr saddex goor buu ku yiri war ilaahay adhab al-qabr ka magan gala war ilaahay adhab al-qabr ka magan gala markuu saddex jeer caynka yiri ayaa rasuulku isagu duca la kacay allahumma inni a'uudu bika min adhab al-qabr saddex jeer ilaahay oo adhabka qabriga iga badbaadi wa nabi muhammad alayhi salatu wasalam wa qofki ilaahay diinta u soo dhiibay wa khayru khalqillah wa rasul rabbil alamin ayaa saa uga baqaya adhab al-qabr oo aan adhab al-qabr arkaynba oo ilaahay oo rasuulkiisa sheegay malaa'ik anbiyadu iyo rasuulu jirkoodu iska daa aboorka iyo adhab warkeeda xitaa ciidu ma cuntabu nabiga alayhi salatu wasalam عينكاس النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا ليال وحيابها مهم كأه يقفك مسلم كأه إنه كتشد الدونيو ونرش آدموشه إلهي وحده سبحانه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله نفس كجو أي صور ما نيسا إذن كإلهي إلا أنت ما ترتب إلهي سبحانه وتعالى كتابا مؤجلا وكتاب أن وركاسي وجوان يهي نفعا إلهي أوغين ولمن يسا مجرته ومن يريد ثواب الدنيا دا ديفتي دي ثواب كذا قفك الدنيا نؤته منها ونصينين كأدون النول وحو عنيو وحو عبون بو قرانيا يا وحو دلو يا وحو وروريو كإنتا كليا قرانيا إيه آخر موقع إيه عن حقا بحسابتي دي هوشا كتشرين انت والنول يا مصروفين مصاريف بانصينين بإلهي ومن يريد ثواب الآخرة قفك الدنيا نصيبكيسا قادنيا آخرة أبالك يا آيها وناكسنا إلى هاي الشيغينا دوني تبعي عمل فلاني الله كيابي ددالينا نؤته منها ونصيننا بإلهي سبحانه وتعالى محي إلهي كو قبي آيات وسنجزي الشاكرين كو الله كحيرا إلهي سبحانه وتعالى دقالها ودقالين هنونك أو هنونيه هقاتي انت اللو مهد علينا أبا القدبة نصيننا بإلهي سبحانه وتعالى dadkii salafka waxay oran jireen taabiciintii dadka saddex baa u aqli badan saddex ayaa dadka u aqli badan man arda rabbahu qabla an yalqah qofka rabbigii raali geliya isagoo nool oo aan wali dhiman ayuu ilaahay raali geliyay adoon ilaahay ku xiran oo wacan way qofkaas dadka kaasa u aqli badan sifada labaad ee aqliga ku leeyahay ومن استعد القبر قبل أن ينزله قفك قبر يا حبال الديار قروبة انت يساقوا الله ما يرى يولا كان في عن حباش اللقلين كسي تحدري الديار قروبة ومن ترك الدنيا قبل أن تتركه قفك الدنيا يساقتها انت آني كتغي الدنيا دو ويكاتغي أما أذا كتغي
nasiibkaagana ka qaado adduunyada gacanta bidix ku qabso diintaadana gacanta midig ku qabso sidaa u qaado walaalayaal qofka muuminka ahi rasuulku sallallahu alayhi wa sallam wuxuu tilmaamay xadiis al-Bara ibn Aazib uu warinayo radiyallahu ta'ala anhu ayaa wuxuu yiri annagoo rasuulka la joogna alayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha kamida ayaa wuxuu arkay dad meel ku urursan markaas wuxuu yiri war halka maxaa ka jira dadku ku urursan yihiin rasuulka ilaahay oo xabaal bay qodayaan markaas yiri yaa xabaal bay qodayaan kabaha intuu iladay ayuu dhaqaaqay nabigu isagoo dheeraynaya waanu gaari kari weynayo annaguna waa la laba lixaadsanay waa daba soconay wuxuu lixaadsado oo rasuulku tallaabsado meeshii qabriga laga qodayay ayuu tagay calayhi salaatu wasalaam markuu rasuulku qabrigii arkay oo la qodayo waa argagax waa isbedelay ilma indhihiisa ka soo daadatay calayhi salaatu wasalaam markaasaa rasuulku uu kada loobsaday al-Bara ibn Aazib oo xadiiska warinaya wuxuu yiri waan daba socday intaan soo wareegay ayaan halkaa hortiisa soo fadhiistay bal anigoo eegaya rasuulka waxa uu oran doono rasuulku waa ilmeynaya calayhi salaatu wasalaam markaasaa rasuulku nagu soo jeestay markuu cabaar fooraray oo ilmadii ka soo daadatay dhulka ay ku dhibcayso garkiisa ka dhibcayso ayuu kor noo soo eegay nabigu calayhi salaatu wasalaam ay ikhwaani ista'iddu li hadha al-yawm walaalahayow maalinkan oo kale u diyaar garoo nin walba xabaal baa ku sugaysay maalinkaas oo kale u diyaar garoo nabigu salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi walaalayaal waxaan u baahanahay qubuurta xitaa in la soo ziyaarto qubuuraha magaalada ku yaala ma ascaadku loo galay in qofku tago bishii mar ama labo usbuuci soo eego waa rasuulku wuxuu yiri زوروا القبور فإنها تذكر الموت وفي رواية تذكر الآخرة والحبالها بوقدا بوقشدا حباله جيريدا إذن حسوسين إيسا بوقشدا حبالها آد بوقتان وحا إذن حسوسين إيسا آخرة والنبي عليه الصلاة والسلام وحا رسولك الشرعيي إن لو دعيو حباشا مركا الله تغو لما فائدة لو تغيا إن آد أدو كوانو إيا وعدي قادتid oo dareenkaaga iyo bal dib isu xusuusatid dadkii halkaas ku hooyanayaan iyo inaad u ducayso assalaamu alaykum ahla ad-diyar min al-mu'minin wal-muslimin saana usalaanto dadka daarta deganay mu'miniin iyo muslimiin oo waydin salaamay inaad tiraahdo antum salafuna wa nahnu bil athar wa fi riwayatin antum sabiqun wadnaga hormarteen oo xabaal baa hortayaad dhimateen waanu idinka daba imanayna wa inna insha Allah bikum lahiqun hadii Allah yiraahdo waanu idinka daba iman doonaa nas'alu Allah lana wa lakum al-aafiyah annaga iyo idinkana ilaahay waxaan u weydiinayaa dambi dhaafi subhanahu wa ta'ala iyo afis hadii xabaal gaala aad soo martidna shariicadu waxay tilmaantay inaad durdura ku dhaafto oo aad nacdasho oo aad tiraahdo ilaahay nacdashiisu idinku soo degtay cadaabkiisana ilaahay idinku shub إلهي مصائب يا بلايا إذن كريد وحدد حباشة قالوا صومرت إنك والله الحمد مسلمين بعدينه أحسن بدنك مسلمين بينه هيو حوالها يقعد المسلمين قوة أحسن وهذا يكون قبضته قبل يا جنتي ولا ليه قفكوا إنه حسوس قبلك أما حباشة أصابه حيابها إنه كهلين فائدة ده وحكم إذا جريد إنه حسوسنين وحكم إذا آخر إنه حسوسنين هم يجان إيه رشدان دير الدنيا لعيرينايو قفكو يسلي حقا أد سايشي وصويرانيا قلبي جاي نقول دبعيا قلبي خشوع دبعسن بينو كهلينا إنها يجا المينيا والنفط يدا اسبدليس غفلة يا هلمانكا أينو جيريدا يكولن كإلهي يا آخرة الهلمانسين يهي أيا يرانيسا وح عبسي إلهي بقلبي إنجليسه دذال حق عبادته بينو كردية ديار جرو أينو قبرك يا آخرة وديار جرو نو أيا إنو كردية إلهي دم بيجيني دم بيجوالد كين بحداف